boqol iyo labaatan sano cimrigaygu maraya ilbaa bari dhaweyd dhakhaatiirtu dhaawiciga yar gaadhsiiyeen tii kale da'da ugu celi da'da 120 ma jiri ma aqaan taariikhiya waxaan la qorqoreen laakiin marna reerniyay baan ahaa marna xirtaa sheekh Cumar baan ahaa isaga sheekh Cumar baa wadooyinka ii jeexay radiyallahu anhu markaa dabeedna dardaarankii waan hayaa tii dalka laga soo galay tii laga baxay tii laga soo hoydayba tan imika dhakan inaga martaba waan garaacay waa wax maayir kasta uu igu soo maray laakiin ma damqado ma yiraahdo muxuu maayirkani wax ku siin laayay amba wax ugu qaban laayay waayo xagga ilaahay baan ka soo degay marka alxamdulillah saaka hadaadi yeeratay oo igu tiri aan saragno inkastoo ka jeclaa waliba halkii aan ka shaqeynayay inaynu isku aragno oo shaqada aad aragto oo wixii lagu yiraahdo waxaad aragtaa de ka haboon wadeer wallahi aad iyo aad baad u mahadsantiin waan idin hambalyeeynaa iskuulka intaasoo arday ka soo qalin jabisay waan hambalyeeynaa cisi caafimaad ku daaqa dhamaantiin hadalkaygu waa iska gaaban yahay marka dabadeedna waa mahadsantiin adeero waxaan hadalka ugu soo noqonayaa waxa weeye dadka reer Soomaaliland ee hadalku aad moodo inay warshadii hadalka yihiin halkan 10 iyo jaamacad weeye 120 sano u jira dalkiisu u shaqeynaya isagoon cidna waxba ka filayn waxa kaloo iyaduna mucjisa warbixinta wadanigani waxay soo gaadhay saaka gudoomiyaha degmada Koodbuur bay soo gaarsiiyay raadiyogan kala hadlay madaxda amar baan bixiyay insha Allah ta'ala warkiisa oo wanaagsan ummadana waa horkeenina reer Soomaaliland waxaan filayaa inay 10 iyo jaamacad weeyaan taniye rag xoog waaweyn ee Facebook dul fadhiya ee dhaliisha wada intan iyo boqolaabkeed baad qaban kartaa hadduu 120 jir wadooyinka buuxinayo adigoo 20 jir ay isweydii waxa dalkaaga iyo dadkaaga aad ku darsatay waxaana sharaf iya inaan mikrofoonka u qabto waayo isaga iga sharaf badan wuxuu qabanayaa shaqo cidina aanay qabanin wuxuu ku qabanayaa da'an qofna ku shaqayn iskuulkana waxaan uga mahadnaqayaa shahaadada ay